kani waa Cabdiraxmaan Axmed oo ah dhaqtar qabilsan fiisatarabiyada iyo daliga wuxuu muddo 15 sano ah ururinaya lacagaha qadiimiga ee wadamada dunida lacagaha aan hayo ma ahan Soomaali kaliya waa adduunka oo dhan qaarad kaliya ma shanta qaarada caalamka tusaale hadan ku sii hadda tan oo kale lacagtan inta waxa ku jira lacag Norway waa lacag ugu dambeeyay kaydkayga weyn ma waxyaabihii yaryar hadan collection gareenayo waaye tan oo kale waa Norway waxa ku jira halkan oo kale waa Netherlands lacagta ku jirtaa way badan tahay waliba lacagteedu inta waxa yaala Switzerland halkan lacagtan furan waa Dutch ama German tan oo kale waa Iceland waxaan ku raada inta waxa ku jira Australia badan kale watan oo iyadana waxa kale jira wadanka la dhigi jira Austria oo lacagteedu taariikh fog ah 1923 iyo 68 iyo lacag ah ayaa ku jira lacagahan lacag fog iyo lacag cusub oo soo dadka kale wadankan Jarmalka oo kale hadda lacagtan East African Germany baa leeyahay farcarabi baa ku qoran waxaan ku raada waxa la isticmaali jiray 1890 waa lacagtan lacagta dad arkaysa 1890 waa ilaa yoomana hada Jarmalkii bari lacagiisa ku jira inta kala go'naan labada Jarmal iyo markii midoobay intaba lacagaha uu hayo ayaa intooda badan waxa la isticmaalayay qarnigii 19aad lacagaha Soomaaliya la isticmaali jiray xilligii boqortooyadii Ujuraan boqortooyadii Galadi iyo sidoo kale lacagtii ugu horeysay ee uu sameeyay gumeystihii Talyaaniga iyo kuwa kale ayuu ka hayaa dalkeena aan hayna waxaan hayaa boqortooyadii Ujuraan lacagteedii waxaan hayaa boqortooyadii Galadi waxa ku jira lacagtii dawladda Islaamka markii boqortooyada u jiraan burburtay wadankuna boqortooyo badan yeeshay nimankii reer Cumaan iyo anaga hal xukuumada naga dhaxaysay ninkii la dhihi jiray Sultan Saciid ibn Sultan ibn Barqash Osmaan Saciid Barqash oo taqaano oo daarta weyn shaqaan ku taala oo Muqdisho caanka ku tahay dhisay waxa kamid ah markii Talyaanigu qabsado kale wadanka koonfurta kale lacagtii ugu horreeyay sameeyay 1900 iyo soo baxday iyo 9kii ma garanaysa Soomaali beesa ayaa la oran jiray tan oo kale hadda waa laba beesa hal beesa jirtay afar beesa ayaa jirtay lacagtan waxa ku xigay lacag la yiraahdo Soomaali Itaaliya ruba 83 markii macdanka isu bedeshay waa tan iyadoo taanadeedii kumigeedii santigeedu waxay wadataa lacagtan Soomaalida waxa la socda boqolkeedii shilin waa kan boqolkeedii shilin boqolkan ka soo baxay 68 waa shabeeleydii wali lacagtaano oo lama bedelinin maxaan ku raada dhisankii lacageedo waxa uu taakadii lama saarino luqad ma bedela laakiin magaca shilin ay qaateen waxa ku qoran 100 shilin sida arki kartaba laakiin waa shabeeleydii oo dhisanka meeshaan hadda alka meeshu kaga jira lacagta kale madaxiisa Maxamed Cabdulla Xasan tan waxa kaga jira shabeelka shilinka ku sawiran dadka oo ku bartay keedinta lacagaha qadiimiga ah ayaa u keenay hadba lacagaha ay soo helaan iyagoo aan u eegayn dal gaar ah kuwaas oo ku kala sugan gudaha dalka iyo dibaddaba helidoodana wuxuu ku bixiyaa dhaqaale markan wixii collection gareeyay dadkii waxay bilaabeen bulshada inay ay keenaan lacago aruursan lacagihii marka waxa dhacday in Soomaaligi iyo ajnabigi bato markaas waxay ugu dhalatay arrinka weynayo oo aan gaarsiiyo heer lacagaha adduunka oo dhan aan aruuriyo shakhsiyaad degmooyin joogo kale inta la xiriirta tiradoon lacag taariikhda Soomaalida soo aruuriyo kale xogta was gargaaraysa waxaan wax muddo badan soo jiray weeye marka bacdama ay macluumaadkii oo bulshada dhex galay wax way dad badan ka warho la saasa lagu imaanaya marka sidaas ku timaada lacagteena aruuriyo wixii aan shaqaysto oo aan xamaasho markii loo qaybiyo saddex qayb kamid ah ayaan ku investment garay ama ku maalgeliyaa inaan uga bedesho caqabado ayuu kala kulmaa wuxuu rumaysan yahay inaysan taasi ka hor istaagin hamigiisa qof baa wuxuu ku leeyahay wuxuu soo helaya kumiga Soomaaliga oo kale 1950 waxaad ku leedahay war aan ka siiyo 10 senti oo shilin Soomaaliya oo dollar oo kale hal senti aan ku tuur wal lacag u dhiganta 2500 wuxuu ku leeyahay war anaga lacagtan dambaad ka leedahay adaa aruursanay wax dalta inaad boqolaal kun siisatay iga si $100 aniga caqabadahan haysta kamada oo dadkii hal dhiga wax lagu sheegay waxa kale jira in qof lacag iyo wado on kala macaamil lahaa asagoo taagan in qof bukaan u yimaado Soomaaliduna waa dad aad wada musaajil wada degdeg badan marka waxa laga yaabaa kii lacagta aad kala macaamilayay oo raba inaad kala macaamisho waxna u reebta asaga kana xariida lacagtii in mid bukaan ku dhararo way dhacdaa sometimes waa caqabad ugu daran haysata marka ayadan insha Allah taala waa xalinaayo وكل ما دام dadka isku afiyo isku dhaqan isku diinahay
ولا اسكو دغنahay waxbaan isla mismisana laakiin caqabada badan ay qabsada waxa dhacaysa in qofku yiraahdo meel hebla igu imood saale degmadan joogo oo hodan degmada shanaad oo kale laga yaabay marka idinta ka baxda 4-5 bukaan oo ku socda inay ku tabadan way dhacdaa marka si kasta ma noqotay hawsha isku xaq la galiyaa waa kaliya kuma koobna kaydinta lacagaha qadiimiga ah ee sidoo kale wuxuu meel dhigay qaar ka mid ah agabka hidaha iyo dhaqanka Soomaaliyeed mustaqbalkana wuxuu ku hami weyn yahay inuu sameeyo madxaf laga heli karo guud ahaan lacagaha qadiimiga ah iyo sooyaalkeena hideed